waxaasoo video celebrate walaalay أنا بقى ما أركب إلهي كل ما تصير إنه خلاص وأنا وح إسقابي يعني مي أهين مقابي روحات الجيم أدي أصدق بقيس وأسكاك ma maantay iigu darnaydo dulin igalay baa nin laga sheegay ma maantay iigu darnaydo dulin igalay adduunyay xaalkaaba adduunyadu waa cayman badan waa noocyo badan waxa weeye hal digniina idinkoon commenti rag boobsiis ah gabadha kala duldhicin marka hore aynu fiirino oo u fiirsano caqliga cilmiga hal lagu dhige caqliga kaashaba la yiri khadra daahir hey salaamullaahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asxaabta sharafta leh waa mar kale iyo muuqaal cusub bartan aad iga dhehanaysaan waa barteen kulmi jirna waa la kaamidhi baro aad iyo aad ba mahadsantihiin waxa idin daadihinaya oo idin soo gudbinayaan oo walaalkeen Imraan hey nacabku darbiyada ha jiro heestaas waxay noqotay hees qofkii caraysaniba ku cilbaxo meeshu gabdhaha waa beel laba wallahi meesha inta soo fadhiisan lahaa aniga miyaa say leedan dhiilaa nacabku inta iska ciyaara xoogaa nacabku heestaas soo saaraya khalaas taasaa waxay uga badan tahay jawaab badan bal hadalka waa idinku dheereeyey kuwiin canab baynu bal eegaynaa bacdal masiibadii dhacday dabadeed muuqaalka koowaad idin shidin liked iyo shareka iyo commentigu waa dhankiina barnaamijka iga sii share garaya dee qodhiin iyo xeradin idinka weeye waxaan muuqaalka usoo galaya hey balaynu muuqaalkii ugu horreeyey السلام عليكم حق ده وعليكم السلام أنا قلت إلى دمك قال قبل إلى أدرى دمك قال ما أنا ناقين وحو إيهان مجلس إبل كور ويعجز تدري ويعجز تنا عجيب هذا لك أي شيء يسوي صحي كتري أنا وقف عن دمك قال مشرو إلهي بان دمك قال وقصنتها يا إن دمك شيء سمع ها أول بواي عايجرتين مركي هراء المقالة سودو بيشري hadda markii dambe oo mudhaay gacantaana iyadana laftigeeda waad caayisiin hadda aan soo laabtayna waa ay caayi doontiin way waa isla sidii uun haya ku soco istaarinaya video ana isku duub snapki kan ani waa isfiirina sile ma fahmin laakiin inay u dirtay way cabsanad iyo naaga وعلى هذا استني وعلى اللي مسوشي صح صوب مرك أنا إله دمك قال إذا قدام ما بدي قل ما حد وجيد نقول من عن بوز دش وحنا صدق إذا وجيد ما كل من ساعة وفرح سنة وقول لي والله نعم معنا أنا قارا واضم الله شكرا أحسن عني بيها أنا حي وأمهد عنا تيجي سور راديو أو لبكي جل قرصة لكن نعم هذا حيان horta hadda hadalkan gabadhan ay ku hadlayso waxa uu yahay way qirsan tahay inay dembi gashay laakiin waxaa jira dad badan runtii oo aad u maagaya iyana ay dareensan tahay oo ay ka hadlayso qofkuna markii dhibaato qabsato ama arrin qabsato ayuu wuxuu kala bartaa dadka ka naxay iyo dadka ku farxay waa markaa kaliya markuu kala ogaado waxa meesha ka cad gabadhani waa gabar yar sida iiga muuqata da'deedu ma weyna waa gabar yar runtii saaxiibada ugu dhow oo dad ugu dhowna waa gabadhan aynu arkayno waa gabadhan oo iyada laftigeedu sida iiga muuqata waxa ay samaynayso haba ka xumaato laakiin aan ka celin karayn oo aan dhahayn macnaha waxa la rabaa saaxiibku inuu saaxiibka kale yiraahdo war waxaas hadhowba wax kaaga soo laabanayaan kada kaaha oran laakiin inaysan oranayn baa uga muuqata walaashay waxaan leeyahay adigana insha Allah taala tan u hiilisa oo walaasheed wanaaga ugu hiilisa noqo ee tan bohol ka sii rida oo madanaha uga tuurta ha noqon insha Allah waxaan kale oo ku daraya adiguna kuwiin canabay ilaahay ba dambi inaa ka gashay waa qirsan tahay dadka Soomaaliduna waa dad markay qaladka arkaan ku soo furguguxda isla markaba oo afmaal ah oo saa u jarjara wax inaad gabdho Soomaaliyeed caydida u sii giftid iyada laftigeeda hadayba kugu gafeen inaad aamustid sababtoo ah
adiga laftigaaga maalinkii arrintaasi dhacaysay dhinaca kale shuushu cabdalla baa been abuur laga soo sameeyey, gabadha badan baa ku gafay, waxay tiri cidna caayi maayo, afkeeda xiratay may caayin. sidii oo kale samay insha allah, okay bay kuu noqonaysaa. aynu kusii soconno bal. حصل فيديوهات في الوريديا ولا لا يتصبر ما أنا بقى ما أركن إلهي كم لا تصير إنه بلوز وأنا وح إسقابي يعني أهلي مخافي روحات الجيم أبي أصدق بقيسو واسكاك الغرام بدنا روحات الإسقابي أنا روحات إذا واي أنا إسقابي فيديو صافك أنا ما وروحاتي أو إسكاك إسكوب بوقتي كذا أنا والله ليالو فيديو يفضل أركن الله لا تصير على روحات قرب بدنا نكسر الجيم ماشي الله waxyaabahan ka hadlayay weeye. saaxiibku waxaa la rabaa markaa qalad ku jirtid inuu ku toosiyo oo ku saxo. gabadhan iyadu ay saaxiibka u aragto, waxaan leeyahay saaxiib fiican oo ku celin kara maaha. iyadana weli yaraan baa ku jirta. qofka waxaa la rabaa bini aadanka ah in loo cudur daaro. hadda kolba waa qaangaar, waa gabar qaangaar ah, dembigeeda waa la qorayaa. ma aha marfuucul qalam, laakiin soomaalida waxay ku maamahdaa 20 jir intuu geed ka boodo buu tala ka boodaa. gabadha walaasheena weli yaraan baa haysa, laakiin gabadhan kale oo garab taagani inay ka weyn tahayna aniga garashadayda iyo aragtidayda ahaan way iila muuqataa. in ay bohol ka sii ridaysana weli way iila muuqataa, sababtoo ah weli waxay sii dhiirigelinaysaa sida iiga muuqata qaladkii ay gashay. muuqaalkii hore aynu soo daynay waxay lahayd macnaha ilaahay baan dembi ka galay, waa kan mar labaadkii muuqaalkana ka dambeeyey baan u malaynayaayo. awal bulshada hortooda way ka baqaysay, hadda waa kan bushkarayn iyo ma garanaysaa. weli shaydaankii baa wada. insha allah ilaahay inuu ka dejiyo baan rajaynaynaa. balan sii dhegeysan ilaahay ha soo hanuuniyo. gabdhaheenii qaar heerkaasay marayaan. anigu waxaan aaminsanahay gabadhan inay u baahan tahay in waalidka iyo si fiican loola hadlo, dardaaran badan inay hesho. gabadhan ilaa hadda gabadhan kala iiga ag muuqata, gabadhanina gabar maaragtay xataa dhahaysa war saaxiibay waxani waa qalad, ilama muuqato inay dhahayso. marka waxay u baahan tahay tala fiican, ehel, qaraabo, walaal, waalid, ciduun bal celise oo gabadhan xumaanta ka celisa. sababtoo ah waxay samaysana waxay ahayd foolxumo, tanay hadda ku socotaana waa foolxumo kale. عبك دربيها كير في عنك هل وانا أعرفه ذكر هاي عن الفيديو ونرو بقطع المستقبل من المستقبل كرت لها وقامتان عندي سو كجرا احنا مي سوينا والله كم دقيقه والله انت ما halkan waxay ku cadeynaysaa mustaqbalkayga ilaahay aanu qabaa. way is ogtahay in macnaha dhaawac inuu gaaray oo ay tahay shimbir garab la dhaawacna inuu gaaray oo ceebi gaartay bay ka warqabtaa. laakiin weli waxay ku adkaysanaysaa hooyaday baan la noolahay, faamilkaygaan la noolahay. waalidka ay sheegayso haddii ay yihiin waalid fiyow oo miyir qaba oo awoodooduna dhammaystiran tahay, ilaa waxaa jira waalid gaboobay oo maanta gabadhan aan waxba ka qaban karin. tusaale ahaan hooyo waayeel ah oo ilmihii ugu dambeeyey ay ahayd, maantana qoftaana qof weyn ay tahay, waxna aysan ka qaban karin. ama hooyo dhalinyaro ah oo xanuun la darsay ay tahay, ama hooyo sideeda kale caqliyan iyo dhinacuun kale naafo ka ah ay tahay. waa hooyadeed, waa jeceshahay, waxay tahay way ku rabtaa, laakiin ma celin karto. inkastoo ilaahay uun dadka uu hanuuniye aabbana uusan wax hanuunin karin, hooyana aysan wax hanuunin karin, waalid iyo walaal tooni uusan waxba hanuunin karin. haddana saasay tahay 90% cabsida iyo ma garanaysaa la jihaadka iyo celinta
waalidka laga rabaa. Marka maadaama ay waalid iyo family weli sii sheegayso, waxa wanaagsan oo aad u wanaagsan inay walaasheen xaqa u sheegaan, oo waaba loo sheegay way ogtahay inay dembi ku jirto, oo waa tan leh mustaqbalkaygu mustaqbalkayga ilaahay baan u qabaa, waa tan leh way is ogtahay in mustaqbalkeedii mindi ku taagan tahay, inaysan ku sii giiran dadka iyo gabdhaha yaryarka ah oo Soomaaliyeedna inaysan xumaan kale usii horseedin, oo gabar kastiba ay waxaan markay dirayso ay istiraahdo oo kaleeto kuwin canabba waa taas maxaa 2 maalmood baa la caacayay kadibna waa taas, inaysan oran oo dadka wada xun oo qaldan aysan dadka u horseedin. gabadhan kale oo la taaganna please waalid iyo walaal iyo ehel iyo dad hadday leedahay, gabadha walaasheeda ha laga qabto. gabadhan walaasheed, gabadhan kuweynihi haddii ay dhan tahay oo fiyowdahay oo caadi tahay, waxaa laga yaabaa wuxuun way arki lahayd gabadhan in wuxuun ka qaldan yihiin. dad badan oo waagii horena lahaa gabadhaana fiidiyowga fikisay, gabadhaasaa fiidiyowga gudbisay way jiraan, laakiin hadda dhaqankan ay ku dhaqmayso waxaan u malaynayaa saansaanta waxaa loo maleeyaa oo aada loogu maleeyaa jabka ku dhacay ee waxa ku dhacay inay weli lasii rabto in ay gabadhani ceebteeda iyo dhiiqadeeda walaaqato aad iyo aad. marka haddii ay iyada laftigeedu ehel iyo qaraabo iyo u joogaan, kolba Nairobi bay joogaane, iyada laftigeeda hala dhaho na gabadha ka har ha laga reebo insha Allah. أنا كل يوم ما أقبل عن وطنها وحسب اللوغوري أنا بحسب اللوغوري ناب وربنا فيديو ويسكتوا بتاع سناب كذا وكنت قف كده على كرماش المتوبة أنا مالها أنا كل يوم ما أقبل عن وطنها وحسب اللوغوري أنا بحسب اللوغوري ناب وربنا فيديو ويسكتوا بتاع سناب كذا وكنت قف كده على كرماش المتوبة أنا منوع عنو كتير ما فهمتوا والله مرة ذلك ما فهمت إذا كنت فيديو ar haddii ay kaa dhab tahay, ar gabadhaasay magacaaga ma aqaaniya, ar haddii ay kaa dhab tahay oo aadan gabadhan bohol uga tallaabsanayn, waxaad aragtay inaad ka caqli badan tahay, inaad ka weyn tahay, in aad ma garanaysaa khiyaamayn kartid ba aragtay. ar adoo qaawan adigu isa soo dhig, waxaadan adigu samaynayn see gabadhan ugu hogaaminaysaa? war gabadhan yaa islaama oo gabadha ka qabta. gabadhani qalad bay gashay, daqiiqada ka hor qaladkeeda way qirsanayd, haddana gabadhan baaba wada waxay leedahay horaa loogaga horreeyey, qalad baa la galay, dad baa qaldamay, waa iyadiiba ilaa iyo hadda garab waxay ku siinaysaa in waxani ay caadi ahaayeen, waxay ka dhigaysaa wax caadiya. ila daawadaba إلهي بس بدنا أمضى الصومالية أنا حسابنا يا قفور إلهي إن شاء الله والله يوحب يقول لك الصومالية كنت بعد قف بياش أنا اللي صدق رايب يسوع صد أنا اللي صدق رايب fiidiyoyaasha dhan anaa idiin soo dirdiraayo markay tiri way ku sii qoslaysaa. marka runtii saaxiib ma aha, tanoo kale waa cadow ma aha saaxiib, waa cadow iyada cadow u ah, waana cadow ka maskax badan. gabdho badan baa jira oo qisooyinka Barlin Official aan mar walba ka soo dayno, gabdho waxa ku jira gabdho maalin dhexdaas qiso aan ka sheekeynayay, gabar ninkeedii inta uga sheekayso ku dirtay markii uu furayna iyadii dib u guursatay, weliba ulana bereereysay oo lahayd anaa kaa furtay oo guursaday. magaranaysa waana wax jira. marka gabdhaha qaar baa islu gooya, gabadhani gabadha way lu gooynaysaa, ilaahay waa ka qaban karaa. dadkan kale oo maaragtay qaraabada iyo ehelka iyo dadka kaleeto oo maaragtay ummadan yaqaanaana way u sheegi karaan. xataa gabadhan kuwiin canab dadka yaqaanaa toos bay ula hadli karaan, waxay dhihi karaan war gabadhani qofka saaxiibka lilaahiga kal iyo laab walaalka ahi xumaantaadu ka dhidhiyaa. wuxuu jecel yahay qofku markuu adiga saaxiibkaa yahay wixii adiga ku dhibaya wuu ka xanaaqaa, ma jecla, qof kulama xaman karo. jooji buu dhahaa saaxiibkay waxaas ha dhihin. haddii aad saaxiiba tihiin oo aad qalad inaad rabtid geshid, sida uusan u ogolayn inaad dhimatid, dhimashada saaxiibkaa dhimashadaad ma ogol yahay. haddii uu ku jecel yahay oo saaxiibkaa dhaba yahay ma jecla inaad dhimatid.
sidaa daraaddeed buusan foolxumo iyo ceeb marna kuula jeclayn. laakiin tani way la jeceshahay, way la qoslaysaa. markii hore oo dhan hadalka waxaan islahaa bal sii fiiri, laakiin xaqiiqada dhabtaa hadda markaan arkay xaqiiqdii way la jeceshahay. gabadhan ilaahayna waa ka reebi karaa, gabadhan aadmiguna waa tusaalayn karaa, kuwiin canabna wax waa qaadan kartaa, laakiin waa ilmo yar. tanina way caddaynaysaa inay ilmo yar tahay. ilmo yar weeye, waxay iska dhigaysaa inay u hiilinayso, laakiin bohol bay ku ridaysaa. horta gabadhan waa dhibane, gabadhan kuwiin canab waa dhibane. ma jecli inaan wax ka sheego oo aan hadal ay dhibsato xataa inaan iraahdo ma jecli, laakiin ilaa hadda waxaan taagnahay gabadhan kale oo la socotaa iyada cadowgeeda weeye. iyada ayay cadow ku tahay, iyada ayay duulaan ku tahay. way aragtaa in ay wax xun samaysay, in mustaqbalkeedii ay dhaawac u geysatay, haddana waxay rabtaa weli inay caadi uga dhigto waxaas, inay caadi uga dhigto waxaan waxba ahayn. waa la sameeyaa, dhib ma lahan. ilaa hadda waxay la soo taagan tahay hadalba hadalka uu maaragtay uga sii khafiifinayo dhibaatada iyo waxa ay geysatay inaysan waxba ahayn. runtii waa aragteen baan u malaynayaa muuqaalkan. gabadhaani dhowrkii maalmood oo wax dhaceen way aamusnayd, laakiin hal mar shimbiri maalin bay dab qaaday, maalintiina buulkii hooyadeedii gubtay. ma maqasheen? maantay dab qaaday. hadday keligeed soo geli lahayd waxaan u malaynayaa xishoodku kama dhammaadeen wejigeeda. way xishoon lahayd, way qajili lahayd. runtii intaasoo muuqaal oo istaba joogana ma soo geliseen. kii ugu horreeyey xoogaa wuu deganaa, laakiin markii dambe midba midka uu ka dambeeyey waxa weeye aad iyo aad buu uga sii daran yahay. waa ceeb ay kusii dhiiranayso, waa dhibaato. dhiiqadana waxaa cagaha u gelinaysa gabadhan, oo dhooqada inaysan ka bixin oo mar walba fashaq siiso waxa weeye waa gabadhan kale. anigu magaceeda ma aqaani, laakiin dadka yaqaanow ilaahay dartiis gabadha wax ugu sheega. gabadhan kuwiin xabsa gabadhan kuwiin canab si ay u badbaado dhantaadu dhimataye dhulkay ku dhacday, dhantada dhulka maad ka qaadaan. ma maqli jirteen? sidaas gabadhani si ay u badbaado, oo maanta haruub daatay caanaha hambadaa la qabtaaye dhaawicii gaaray uga soo kabato. ilaa waatanoo afkeeda ka cadaynaysaa iyaday ahayde. waxa weeye gabadhan kale oo la socota bal fahansiiya, war dadka la hadli karo la hadla. war gabadhaa kale, gabadhaasi iyadaa bahosha ka riday. awalna iyadaa ka ridaysaan aaminsanahay, haddana iyada uunbaa ka ridaysa. waxaan leeyahay kolba aadmigu waxba ma qaban karo, ilaahay ha ka qabto. kolba gabadha yarta ah bohol bay ku wadaa, iyaduna qof yar maaha, waa qof weyn. inay isceliso oo caqligeeda la kaashato. dadka caayaya inaysan arag, laakiin dadka waaninaya oo wuxu sheegaya inay waanadooda iyo taladooda qaadato, mustaqbalkeeda iyo aayaheedana ka fikirto. waalidiinteeda iyo ciddii ay isku xaq leeyihiin oo dhanna in ay gabadhan si kasta ay wax ugu sheegi karaan wax ugu sheegaan. waxaan sheekada kusoo gabagabaynayaa war gabadhan ha la qabto. war gabadha qabta, gabadha ilaa qofkii waalan walaalkiisa umiyar qaba. qabta oo gabadha xira. war qabta oo meel fariisiya oo haddii ay maskaxda ka jug tahay qur-aan ku akhriya. war qabta haddii ay intaa wax ku qaadan weydo dhangalaaseeya. afrikay joogtaa gabadhuya, afrika wax lagama qaban waayine, ehelkeedna waa buuxaaye. war gabadha wax ka qabta. intaasaan kusoo gabagabaynaya. waxaan idinkaga tegayaa salaamullahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu. wuxuu sheegi karaan wax ugu sheegaan. waxaan sheekada kusoo gabagabaynayaa war gabadhan ha la qabto. war gabadha qabta, gabadha ilaa qofkii waalan walaalkiisa umiyar qaba. qabta oo gabadha xira. war qabta oo meel fariisiya oo haddii ay maskaxda ka jug tahay qur-aan ku akhriya. war qabta haddii ay intaa wax ku qaadan weydo dhangalaaseeya. afrikay joogtaa gabadhuya, afrika wax lagama qaban waayine, ehelkeedna waa buuxaaye. war gabadha wax ka qabta. intaasaan kusoo gabagabaynaya. waxaan idinkaga tegayaa salaamullahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu.